kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha toddobaadkiiba hal mar ka dhacaan shaashada caalamiga ee Soomaali TV barnaamijka alaabo waxa idin la socodsiisaa anigoo ah Farduus Muxiba daawadayaal barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa toddobaadkan qodob muhiim ah sida loo horumariyo ganacsiga yaryar waxaa jira dhalinyaro badan oo ka soo baxday jaamacadda dalka isla markaasina keenay fikir ganacsi si ay ugu shaqeystaan haddaba fikirkaasi ganacsi ma yahay mid u baahan taakuleen iyo in la maalgelintu waa horid lacageed ama hanti oo maalgelintu waa horid lacageed ama hantiyada oo la galiyo meel laga rabo rajo mustaqbal si loo gaadho faa'iidooyin shakhsiyadeed iyo mid guud ahaaneedba marka laga hadlayo ganacsiga waxa loo baahan yahay in la maalgeliyo iyo in taageero la siiyo qof kasta oo keena fikir ganacsi isla markaana la galiyo tacab dhaqaale iyo mid waqtiyeedba si loo gaadho ganacsi heer sare bangiyadu waxa ay door muhiim ah ka qaataan dhinaca dhaqaalaha sidoo kale waxa ay yareeyaan saboolnimada iyaga oo fududeeya dhinaca maalgashiga haddaba ma jiraan caqabado ka hor iman kara bilowga xirfad ganacsi kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara horumarka ganacsiga yaryar badanaa caqabad lama kulmaan dadka xirfadda u leh ganacsiga iyo dhaqaalaha sidoo kale sixir bararka ayaa isaguna hoos u dhac ku keena ganacsiga yaryar isla markaana u baahan maalgashiga iyo taakuleynta waayahay daawadayaal intaasi ayuu inoogu eegyahay barnaamijkeennii ganacsiga iyo dhaqaalaha toddobaadkiiba hal mar ka dhacaan shaashada caalamiga ee Soomaali TV tan iyo intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waa aniga iyo dhammaan howlwadeennada Soomaali TV oo idin